بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaa galabta halkan kusoo gunaanadmay shirkii labada maalmood u socday dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah madaxdoodii iyo mas-uuliyiintoodii. communique ka soo baxayna waa laydin akhrin doona haddii alla yiraa. shirkaasoo ahaa kii labaad oo aan isugu nimaado, waxaanan muxuu ahaay doodo fiican iyo muxuu ahaay isweydaarsi fiicana dhacday. wayna socon doontaa wada shaqaynta noocaana iyo haddii alla yiraahdo, iyo shirarku way socon doonaan ilaahay idankiis. riyadii iyo dhowristii daafici diinteenna ayaan dagaalkaas uga jiraa. dadka soomaaliyeed oo dhan ay uga jiraan. maanta dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dareenkaasaa ku wada jiro. waa bogaadinaynaa, waana dhiirigelinaynaa in lagu sii socdo. dowladdanna wax ay kari karto iyo wax ay qaban karto ka reebanaysa male. maanta in shacabka muxuu ahaay nimankaa nabadiidka dalka laga xoreeyo, aan ka hortagno macaluul dalkeenu inaanu gaarin. markaan leenahayna waxaa ugu horeyso inaan shabaab ka xoreyno si loo gaaro dadkii meelaha macaluusha ay ugu dhimanayaan waa meelaha muxuu ahaay nimankaa nabadiidka ay ka talinayaan. dadkeena si aan macaluusha uga badbaadino aan ka xoreyno nimankaa, si aan u gaari karno oo aan ugu gey karno wixii ay ku badbaadi lahaayeen. marka dagaalka nimankaasi waa sidaas. fariin qayb labaad oo fariintaas amniga ku saabsan oo ku daray waxay tahay dadka soomaaliya meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan. nin kastoo shabaaba waa hadaf, ciidan kastoo shabaaba waa hadaf, qof kastoo shabaaba waa hadaf. sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan, ayaguna waa hadaf. agtooda ha ku dhaawacmin, hana ku dhimanin. ka fogaaw. waa la duqaynaa, waa lala diriraa, waa lagu duulaa, waa laga dul degaa, wax walba oo dagaal oo ku furan yahay shabaab ku furan. shacabka soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab joogo. maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah. meelaha dadaan wacyi gelinaynaayo waa wacdinaynaa ilahi wacdigooda waa wacdi khaldan ayaan loo tegin. meelaha ay joogaan yaan laga dhowaanin. meesha uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo. qofkii afduubtaane afduubku haystaan waa meeshiisa, garaawshiyuu leeyahay. ka fogaaw. ayadana waa talo kale, fariin kale oo shacabka soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yidhaahdo. dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga ka mid ahayn, oona ognahay dadka soomaaliyeed inaanay shabaab ka mid ahayn, ay ku mabda ahayn, ay ku rabitaan ahayn, ay ku magaciisa ahayn. dadka soomaaliyeedow walaalayaal ka fogaada shabaab. aad iyo aad ayaa umahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.